Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti waxaana saxaabay kusoo dhawaada wararkeena maanta. Waxaynu ku lafaguri doonaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo suuqa kala iibsiga. Intaynaan bilaabada subscribe noo saar si ay ku soo gaadhaan warbixinteeda maalinlaha ah. Siina share garaysa asxaab badan u gaadho. Arsenal ayaa xalay la kulantay guuldaradeedii ugu weyneed xilli ciyaareedkan, iyadoo laba ciyaarood gudahood iska lumisay kasoo qaybgalka Champions League. waxaanay guuldaro kale kala kulantay kooxda ay dhawaan iibsadeen maalqabeennada Sacuudiga ee Newcastle United, waxaana in badan kula loolamaysay kaalinta afraad kooxda Tottenham oo hadda kala wareegtay Premier League. waxaa harsan hal kulan oo lagu kala bixi doono. Rajada ay ka qabaan Champions League waa mid aad u adag. Taageerayaasha Arsenal waxa u muuqata inay mar kale ka ciyaari doonaan Europa League. Liverpool ayaa war cusub ka heshay xaaladda xiddigaha ugu muhiimsan kooxda ee Mohamed Salah iyo Van Dijk, kuwaasoo dhaawac haleelay ciyaartii ugu dambeysay Sabtidii finalka FA Cup-ka. Mohamed Salah iyo Van Dijk ayaa labaduba Liverpool ka maqnaan doona kulanka caawa. Liverpool ayaa maan ku haysay Manchester City Sabtidii fursad iska lumisay iyadoo barbara gashay, waxaana ay doonaysaa inay farqiga dhibcaha soo yareeyaan si ay loolanka Premier League rajo uga qabaan ilaa kulanka ugu dambeeya. Liverpool ayaa isku halaynaysa kooxda uu macallinkii u yahay kabtankii hore ee Liverpool Steven Gerrard inuu u qabto City. Dhanka kale, tababaraha Liverpool ayaan doonayn inuu halis geliyo kulanka caawa labadan xidig si ay taan buuxa ugu noqdaan kulanka finalka Championka ee 28 bishan. Klopp ayaa qiimeyn ku sameeyay midda kooxdiisa u fudud inay ku guuleystaan horyaalka Premier League iyo Championka xilli ay mid final joogaan, midda kalena laba kulan u aadsan yahay. Klopp ayaa sheegay in ku guuleysiga 38 ciyaarood ee Premier League ay ka adag yihiin ku guuleysiga Championka. Xiddigaha Muslimiinta ah ee Liverpool Sadio Mane iyo Mohamed Salah ayaa sameeyay falcelino kala duwan intii lagu jiray dabaaldegii kooxda kulankii FA Cup-ka. Kamaradaha ayaa qabtay qaabkii kala duwanaa ay u dhaqmeen Mohamed iyo Sadio Mane oo Afrika ka soo wada jeeda intii ay xiddigaha Reds ku dabaaldegayeen khamriga markii ay koobka qaadeen. Mane ayaa sidii looga bartay uu sameeyay guushii Carabao Cup-ka isagoo ka cararay safka markii uu arkay in la bilaabay in la qarxiyo qoraarada khamriga. Salah oo isagoo hore eedeymay ugala soo kulmay inuu sanad kasta u dabaaldego ciidda Christmas-ka ayaa mar kale dhibaato dhex fadhiya kadib markii uu go'aansaday inuu iska dhex fadhiyo dhulka muddadii khamriga ay saydhinayeen xiddigahan Kirishtaanka ah. United ayaa ilaa 10 ciyaartii fasaxi doonta marka uu furmo suuqu, markaasi oo la filayo in isbeddello waaweyn ay ka dhacaan Old Trafford, waxaana ay dhammaysanayaan xilli ciyaareed niyad jab leh oo ay ka maqnaan doonaan kaalinta afraad ee horyaalka. Haddii nasiibkoodu fiican yahay waxay imaan doonaan kaalinta 6, waxaana taasi ka dhigan tahay inay ka maqnaan doonaan tartanka Championka. Tababaraha cusub ee Manchester United Erik ten ayaa Isniintii shalay soo gaadhay xarunta tababarka ee Carlton. waxa uu qayb ka noqon doonaa go'aamada la gaadhayo iyadoo hadda la diyaarinayo liiska ciyaartoyda bixi doona oo intooda badan ah kuwa qandaraaskoodu dhammaad yahay. Xiddigaha kooxda koowaad ee Paul Pogba, Jesse Lingard, Matic iyo Mata iyo Edinson Cavani ayaa dhammaantood si xor ah ku bixi doona. Waxay sii sagootin doonaan ciyaartoy badan kulankoodii ugu dambeeyay, kuwaasoo ka soo muuqan doona garoonka ama kursiga kaydka. Real ayaa heshiis la gaadhay Kylian Mbappe oo bisha dambe ka soo degi doona Santiago Bernabeu kadib 5 sannadood oo u ciyaarayay PSG. Sida la xaqiijiyay, Real Madrid ayaa heshiis 5 sannadood la gaadhay Kylian Mbappe oo ah ciyaartoyga labaad ee ugu qaalisan kubadda cagta, isla markaana sanadkii 2017 ay PSG ku soo iibsatay 180 milyan oo euro. Labada dhinac ayaa wax walba ka wada hadlay bilihii ugu dambeeyay, waxayna gaadheen heshiis buuxa oo aan dibadda u soo bixin, taasi oo keentay in Mbappe uu ka goos adiga dalabaad lacago badan xambaarsan oo ay u bandhigtay PSG. Mbappe ayaa booqday magaalada Madrid toddobaadkii hore, waxaana uu joogay maalmihii Isniinta iyo Salaasada, waxaana la rumaysan yahay in waqtigaasi ay labada dhinac fursad fiican isku heleen oo heshiis la dhammaystiray. wararkeena ciyaar waa naga taas asxaabeynta ku kulmi doona wararkeena kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.